wuxuu caan ku noqday oo ku soo ifbaxay fikradii cufistidadka hawada sare ee loo yaqaano black holes ee macnaheedu yahay godkii madoowa taasoo aysan jirin wax saameynteeda ka badbaadi kara. haddaba cufistidadku waa fikrad ka hadlaysa in qofka iyo wax kasta oo ku dulnool koonkan ay ka lumayaan miisaanka uu ku leeyahay dhulka, taasina ay keenaysa in hawada uu haabo sidii xanshi oo kale. kaasi waa saynisyahankii weynaa ee Stephen Hawking. wuxuu dhashay 8 January 1942. wuxuu u dhashay wadanka Britain wuxuuna wax ku bartay jaamacadda Oxford. wuxuu ka dhashay qoys ay agtooda qiimo weyn ka leedahay waxbarashadu. aabihii waxa uu bartay cilmiga caafimaadka iyo shaybaadhka oo uu ka bartay jaamacadda Oxford. sidoo kale hooyadii waxay baratay cilmiga falsafada iyo siyaasad, sidoo kalena waxay baratay cilmiga dhaqaalaha. saasay tahay Stephen waxa uu ka soo jeeday qoys ay aqoontu biyo dhigtay. Stephen bilowgii waxbarashada muu ahayn mid aad ugu fiican waxbarashada oo dhan, sidoo kalena dhibcaha iyo buundooyinkiisa imtixaanku waxay ahaayeen kuwo aad u hoose, balse waxa uu aad ugu fiicnaa maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska. sidaas ay tahay waxaaba iskuulka loogu naaleysi jiray saynisyahankii weynaa ee Albert Einstein. kadib markuu dhammeeyey iskuulka, Stephen wuxuu go'aansaday inuu sii wato cilmigiisa xisaabta iyo fiisigiska, balse aabihii ayaa kula taliyay inuu barto cilmiga caafimaadka si uu u helo shaqo wacan oo wanaagsan. balse jaamacadda Oxford maadaama aysan jirin fakalo gaar ah oo laga barto xisaabta iyo mathematics-ka, sidaas oo ay tahay wuxuu bilaabay cilmiga physics iyo chemistry-ga, halkaas oo jaamacaddu siisay waxbarasho bilaash ah. kadib markuu fadhiistay imtixaanka sanadkii 1959, Stephen sanadkii koowaad ee jaamacadda ma helin cid uu la saaxiib. sidaas ay tahayna wuxuu bilaabay ku biirida koox ka mid ah jaamacadda oo ku tartami jirtay biyaha, balse jidhkiisii qaab dhismeedka jidhkiisa oo aan ahayn mid aad u dhisan waxa uu noqday hagaha doonta. tartanka noocan ayaa ahaa kan ugu shacbiyada badnaa waqtigaas. sidaas oo ay tahay Stephen wuxuu ka noqday jaamacadda nin caan ah, dadkoo dhammina ay jecel yihiin. haddaba Stephen markii uu jiray da'da 22 jir ayaa lagu sheegay xanuun daran, waxaana lagu wargeliyay inuu dhiman doono sanado yar kadib. xanuunka laga helay oo ahaa nooca dhif iyo naadir ah ayaa lagu magacaabaa methylneurian, isoo micnihiisu yahay daran maskaxeed, kaasoo ku dhaca neerfaha iyo maskaxda iyo xangulaha dhammaan. shaqo joojin ku sameeya neerfaha qofka, sidoo kalena dila habka dareenwadka qofka ee xangulaha qofka ku dhacana uu sii jiri doono sanado kooban. Stephen waxaa la soo darsay warwar iyo mustaqbal madow, balse maalin ayuu isbitaalka kula kulmay wiil yar oo dhalinyaro ah kaasi ka cabanayay xanuunka kansarka dhiigga raaca. Stephen wuxuu go'aansaday in uu jiro dad isaga kasii liita ay dunida saaran yihiin. sidaas ay tahayna Stephen waxa uu doonay inuu si raaxo leh u dhammaysto sanadaha kooban ee ka hadhay noloshiisa ka hor intii aanu la soo darsin xanuunkani. Stephen waxay xiriir jacayl la lahaa gabadh magaceeda la yiraahdo Jenna Well, taasoo ay isku jaamacad ahaayeen. Jenna Well markay ogaatay in Stephen uu la soo darsay xanuunka noocan ah, waxay go'aansatay inay cidlayn Stephen oo ay garab istaagto. Stephen iyo Jenna way isguursadeen sanadkii 1964, waxaana Rabbi ku irsaaqay 2 wiil iyo gabadh. Jenna waxay ahayd gabadh mar walba ka taxadartay Stephen, sidoo kalena daryeesha. sidoo kale Stephen wuxuu ahaa ninkii koowaad ee curiyay fikradda loo yaqaano cosmology. Stephen markii xanuunkani howlgab ka dhigay, wuxuu bilaabay inuu iska fasaxo xaaskiisa si ay ugu noolaato nolol raaxo leh. sanadkii 1994 ayuu Stephen iska furay xaaskiisii hore. Stephen isla waqtigaas waxa uu guursaday kalkaaliso ahayd gacan yare, balse xiriirkii iyo jacaylkii uu qabay xaaskiisii hore marnaba muu ahayn mid alaabay oo hilmaamay. sidaas ay tahay waxa uu ka sheegi jiray meelaha khudbadaha uu ku qabanayo. Stephen sanadkii 1979 waxaa la soo darsay xanuun xagga hadalka, waxaanu mar walba dareemayay culays, marba markii kasii dambaysana way sii adkaanaysay inuu hadlo. mar kale sanadkii 1985 waxaa haleelay caabuq xagga sanbabka ah, waxaana lagu sameeyay qalliin degdeg ah kaasi oo raadkii ka farcamay. caabuqaana wuxuu sababay inuu waayo gebi ahaanba hadalkiisii. xanuunkan ayaa ku kalifay inuu soo urursado ama uu gaadhi curyaanka haysto, kana dhigan in aan hadli karin, balse shirkadda Itel ayaa u samaysay qalab codka ka soo saara maadaama uusan awoodin inuu hadli karayo. cilmi sayniska kasakow, Stephen waxa uu ka soo muuqday taxanayaal badan oo telefishinada laga baahiyay. sidoo kale waxaa jiray filmaan isaga laga jiray, kaasoo jilaagii filimkaa sameeyey The Random Mind uu ku guuleystay abaalmarinta Oscars. waxyaabaha aadka loogu xasuusto
waxaa ka mid ahaa sanadkii 1979 Stephen jaamacadda Cambridge waxa uu ka qabtay dhigista maadada xisaab. Sidoo kale wuxuu alifay buugaag tiro badan oo ku qoray aragtidiisa black holes sida buugga A Brief History of Time, sidoo kale The Universe in a Nutshell, sidoo kale buuggiisa saddexaad oo qoray oo ahaa On the Shoulders of Giants. waxaa la sheegay inuu xitaa diiday abaalmarinta ugu sarreysay ee boqoradda Ingiriiska ay bixiso, sababtuna ahayd in uu ka xumaa dhaqaalaha yar ay dawladdu ku bixinayso sayniska. Stephen wuxuu dhintay bishii Maarch 14, 2018.